وحكوا أنت سير عسل قاركود أيام صلاة إلهي تكنين صلاة البرتقال صلاة إلهي تكنين صلاة البرتقال مينا وحوي أسخرنا على سمينا ميدا جناس لو تكنا أمر وزارة مدحوينا تاي وأكو قصبن تاينا اسك حرات أوبريشن كدورشة وحوي dad fara badan oo quraasyo sugaya la farsamaysto quraasyadooda dadka la sii warar inta badan la isla dhexmaraya jirtay inta safaaradda joogtay in adiga wasiirka arrimaha dibadda markaas joogtay aad khilaafina dhaxgalay bal hadii suuragal tahay sidee wax u dhaceen neew 2013 ka ahayd wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya gabar ay ahayd markaas ra'iisul wasaar ku-xigeenna way ahayd Fawzi Yusuf Xaaji Aadan la yiraahdaa warqaday soo qortay waxay tiri diblomaasiyiinta safaaradda jooga soo xaroodaan xamar ku soo xaroodaano gudi Allah u naxariistay ambassador Yusuf Dheeg iyo nin hadda xildhibaan dhabanacad xildhibaan baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan waaye nin oday diblomaad ah waaye oo taariikh fog diblomaasiyadda Soomaaliya ku leh marka waana la xareeyay gudigaasaan u taqnay aniga shahaadadeedii warqadii lagu magacaabay baasaboorka iyo viisada deganaanshaha iyo kaarka diblomaadka wixii dhan tusay hal maalin la qaabilay halkaas maalin la qaabilay wixii marka way qabiilayeen ayadoo madaxtooyada waji ka raadinaysa ayaa booski aniga ku fadhiyay shaqaalanimadeeda xogeynta saddexaad safaaraddu ah waxay ku soo qortay laba wiil oo abgaal ah midna Axmed ali raa midna Ilyas ali raa ayadoo madaxtooyada ka raadinaysa taageero siyaasadeed marka anigana nin dhalinyaro iska ahay shaqadiisa la qaatay hooga xanaaqay 2013 markaasaan wasiiraddu waxaan isku dayay inay idulmisay idaacadaha magaalada Muqdisho ka sheegay idaacad la yiraahdo Simba idaacad la yiraahdo kulmiye idaacadiyaan ka hadlay waxaan ku dhahay nin dhalinyaro ah oo la dulmiyay oo qabiil ahaan hataa meeshuu joogay qolo oo maaragtay isla dhalinyaro ah fursad raadis ah la siiyay marka ani hataa meel kale in la geeyay ahayd muwaadin Soomaaliyeed aan ahay ma mudni in saas dhigi galo wax badan ay idaacadaha ka sheegay markaas wasiiradda safiirka la soo hadashay safiirka waxay ku tiri reedi Muqdisho ka hadal waxa ku tiraada Cabdisataar Xasan Cali safaaradda kamid ma aha dhex weligiisna kama soo shaqeyn waana dukumiintiga haysto dekreetadii waxa haysta wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ee magacaabo baasaboorka diblomaadka haysta safaaraddan ka shaqeey community Soomaalida Nairobi joogta ay taqaan dulmiga ani aan ka hadlaay hadana dulmi kale safiirka igu daray oo yiri Cabdisataar Xasan Cali safaaradda kama shaqeey shaqaale ka tirsan ma marka waa kulaaday markaas waxaan go'aansaday shaqaalanimo nooc kasto ay tahay haday dawlad in loo shaqeeyo ay tahay inay tahay in shakhsi loo shaqeeyo ina iska dhaafo markaas waxaan go'aansaday dadnimadeedii inaan soo dhiso iskeyga inaan wax u raadsado dulmiga meesha ka jirana maalinteeda yooman min al-ayaam aan saxo meena dulmi aan leeyahay sameey dulmi kuma gudaay waxaan ku bedelayaa wanaag waayahay shakhsiyan goormaad ay kugu dhalatay inaad saaxada siyaasadda fuusho niyo ani siyaasadda yaraanteedii waa iska jeclaa dadkan BBC iska dhageystaan ahaa marban sidii quraanka amal caasimadaha adduunka u xifdiyay dad waxa jira moogtahay wax isku taxaloojiyo waliba BBC markaas FM ay ka soo galeysay ma jirin MW baalkii ka saaray jirnay raadiya hatta anteenadiis intii loo taago ee qabanayna anteena kale guri loo saaray jiray marka weligeyga hobbigeyga wuxuu ahaa in madaxda Soomaalida
aan barto wararka ugu dambeeyay ee Soomaaliya adduunyada aan la socdo qofka bini aadanka ahna aqligiisa waa koraa mugta marka koriimada aqliga ay koraayo ayaa waxaan la jaan qaaday inuu istaagayo hadda socod barad amal inta daadaha la dhoo gacanta la qabto socodsiinayo taagsanayo kadibna hor ku sii soconayo amal waa iskala qabsaday marka khibrad ahaana dhib ima hayso dhibaato khibradeed ima hayso shakhsiyad ahaana qof hadda meelaha ka dhacaayo oo kaali maanta wax xumeyn ama kaali dadka iska dabagala wax ka sheeg mi hoogaa alxamdulilah rabbil caalamiin waa tahay inta siyaasadda ku jirta maxaa kugu yaaqo badnaa niyow ma arrimaha bulshada ama siyaasadda intaad ku jirtay siyaasadda inta ku jiray waxaa iigu yaabka badnaa waa farabadan yihiin horta siyaasadda meel wax lagu dulmiy ma aha dhacdooyin waa jiraan dad dulmi lagu sameeyey laakiin hadda ciddii geysatay iyo ciddii loo geystay iyo sheegistoodii ama inta wax laga soo gudbay laakiin siyaasadda axmedo waxaan ku caddaynaa dhexdeeda waa la isku dulmiyaa bedelkii ahayd in taariikh laga tago oo xasuus la reebo siyaasadda Soomaaliya waa la isku dulmiyaa waayo markaan dhanka bulshada aadno intaadan siyaasadda gelin dabcan yaraantaadii iyo intii dagaaladii sokay dalka ay ka jireen iyo waxyaabo maantaqaana marka hadda soo xasuusta aad la yaabto oo la yaabku ugu reemi jireen waxaaniyow yaraanteydii caruurnimo waxyaabo aan la yaabay oo igu reebtay ilaa iyo hadda calaamad igu reebtaa jirto markii dugsi quraanka aan dhiganayo oo marka shabeellada hoose joogay nin dugsiga aan isla dhiganayni inuu hadda inta in kale ma aqaano warkiis ma haayo fartaan uu iga qaniinay xasuustii ardayda ilaa hadda ninkaas ka xasuusanaa iyo macallinka dugsigayni wiilkiis oo Haashim la yiraahdo oo aad noo garaaci jiray kabiir nooma hayna aabihiisu wuxuu u hayay dugsiga waa nagu farmacaansan jiray aad noo garaaci jiray marka yaraanimadii dugsi quraanka weynaantii markii oo daynil la joogay iyo barbaleemada Soomaaliya ka dhacay markaan sinaada soo tiri 3 saacadood waraysi ah ma ku filnaanayo marka dhalinyarnimadina waxba ila yaab badnaa dugsi marka dhiganayn waxba ila yaab badnaa marka waa badihiina waaya siyaasadda markaan ku soo noqono sanadkii 2016 waxaad kursi u doonatay magaalada Baydhabo caasimadda gobolka Bay kadib kursiga waad soo waysay sidee wax u dhaceen niyo wade 2016 Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxweyne ahaa waxa laga gudbaayay odayga beesha uu soo xulaayay qofka xildhibaanka ah laga soo gudbaayay waxa loo soo gudbay 51 ergo xildhibaanadan waxay ahaayeen 275 waxa lagu soo kordhiyay 54 senator marka koonfur galbeed 8 senator ay lahayd marka 8 senator qaybintoodii ayaa qabiilka aan ka soo jeedo hal senator la siiyay marka ciidayda marka hore waxay lahayd 3 xildhibaan maadaama hal senator lagu soo kordhiyay kursiga soo banaanaaday waxay noqdeen 3 xildhibaan iyo hal senator oday ciida ah oo Cabdullaahi Cabdi Garuun yiraahdo ayaa senatorka loo qorsheeyay in la siiyo madaxweynaha koonfur galbeed aa qorsheeyay hadee ciyaarta markii lagu daalo qof harako ku soo kordhiyaa jirta mugta ciyaarta oo xiiso u yeelo markaas maamulka koonfur galbeed gaar ahaan Shariif Xasan ayaa waxa go'aansaday in beeshayda maadaama senator u soo kordhay xildhibaanka senator ku fadhiyo booskiis in aan la isiyo markaas ina Garuun ku fadhiyo marka xildhibaannimada senator u sii socdaa
marka beesha waxa waaye laba u kala leedahay hal senator iyo hal xildhibaan laf liidaado war dheeraa qaatay laba xildhibaanna hibiloobo laf liidaado beesha maraflay ka tirsan tahay geeladlaa liidaada geeladlaa laba u kala baxo hibiloobe iyo war dheera waay marka laba loo kala qaatay marka aniga Shariif Xasan ay igu yiri boorsadaada soo qaaday xildhibaan baan ku siinaa saaxiib ahayd macnaha ilaahay hadda saaxiibaan nahay wax yar oo dhibaato yar oo dhacday waa mushkilad ma laha xas sideed waqtiga uu socdaa mugta sidii ma aragtay baydhabo igu geeyay marka kursigii senatorka ayaa la siiyay ninkii kursigii waa soo banaanaaday ani marka saaxiibo siyaasadeed ayaa hadda ma xasuustaan dadka ay caawiye inaa xildhibaankaas noqdo ninkan wasiirka ii sheeg cadaalad hadda Xasan Macalin ma xasuusta laakiin $10,000 uu siiyay xildhibaan uu noqdo Umar Abdirashiid markaas ra'iisul wasaare ahaa hadda asiga ma xasuusta laakiin $30,000 uu siiyay Abdinaasir yarkan sacadka musharax Dr. Abdinaasir ma xasuusto $10,000 uu siiyay aniga intaan xildhibaan raadsaninba lacagta waad ku gaaraysaa haysta saaxiiba iska kii watay caawiye oo aan digili marflaha ta ahayn oo Soomaali Ilaahay ah marka baydhaw marka waxaan ku tagay nin dhalinyaro firfircoon wax bartay niyadiisa ay tahay nadiif wixii soo dhacay oo beesha dhexdeeda ka soo dhacay aan ku dhex jirin dadkana rabo in meesha ay joogan hore ugu sii wado markan baydhabo tagaba saameentay dadnimo ila dhaqanka bulshada waa ficneed Allah qeer ha siiyo ugaaska cidda markaan baydhabo joogno malaaqa dhaxna malaaq reerka malaaq leysamo ayaa odayaashii iyo ani asiga shirnay marka xasuusa ii ahayd sidii aan ergidii iyo wixii ku diyaarsaday ani waxaan ka shaqeeyay xildhibaankay kaliya ma ahan xildhibaano kalaama ka shaqeeyay inay kuraas helaan alafku waa meeshiis dadkii aan la shaqeeyay inay kuraas helaan oo waliba ilaa doorashada aan daba taagnaa waxaa ka mid ah yar wacdaana Axmed Umar Islaaw lidaado oo xilligaas libka aan ka maray ergidiis meeshay degneed hata irid inta soo qufushay aan quful ku xirto musharaxiintiisi daaqada guriga ergida ku jirtay ka fiirinayeen marka dad fara badan oo asxaab ah ayaa 2016 soo caawiyay xildhibaano soo helay laakiin ani waa soo waayay laakiin odayaasheedii si fiican aan ula soo dhaqmay meesha meel oo odayaal lagu soo dayacay ma ahayn haday dhaqaale noqotana wixii gacantay ku jiray waa kala qaybsanaynay haddii ma aragtay hool iskugu imaanay ay tahayna kufay kali lama wada cabi jirin waxba ma aragtay waa la isla qadan jiray waxba dheeraa Shariifka dadka gafteen maadaama uu ku yeeray uu kursiga ku siiyay haddana inuu qof kala siiyo yani macnaha siyaasad ahaan isu bedelay maya asna naftirkiis inaan kursiga waayo waa ka kulaaday marka qolo asiga la shaqeynaysa ayaa aniga wax iga hadlaysa laakiin qoladii markaas feelal waaweyn iyo dad fara badan oo la soo farsameeyay hawshooday u haayeen marka dadka markaas la soo farsameeyay aadan sanasoora kamid ah marka feelash lama furi karin xildhibaan qaalida kamid ah oo bagadi ah marka wixii dad badan baa lagu booday markaas dad baya operationka doorashada waxa waaye dad fara badan oo kuraasyo sugaya la farsamaysto kuraasyadooda dadka la siiyay marka ani kiiskeygii hadii waa la furaa ilaa 11 xildhibaan la soo farsamaystay aan lagu dul furi lahaa marka Shariifka asiga ay maslaxaystay waliba inta ila fadhiistay ayuu hataa lacag xaal marin oo isii marka aniga qof marka hadii ku yiraahdo waa gacanta iga dhacday raali ahaw
اللي واق أفرزر له جرا صباح exactly أفرزر كتبنا وحي كسماعي وقبس ذواب الوجاب waayahay abstar inta badan warbaahinta waxaan ka arki jirnay dowladii farmaajo adigoo aad ula dagaalamaya oo mataqaanaa yani media ka dhaliilayo sababtu maxay ahayd niyow dowladii farmaajo kaliya ma aha aniga wixii qalad aan arko ayaa si raganimo leh oo run ah u sheega waxda dowladda farmaajo kaliya gaar u ah ma jiro tan naftirkeedii waa ishaynaa marka shalay ahayd maantana maanta waa laakiin aniga nin aaminsan inay beri jirto ayaan ahayd nafta la qabo marka siyaasiyiinta soomaalidana waa kuu sheegay inta badan run ma sheegaan lugooyada iyo ballanka baxa meeshay ka jirtaa adoo ra'iisul wasaare ama madaxweynaha hadii meed qof askar loo sameeyay ama ra'iisul wasaare hor dhintay ama gudoomiye hor baarlamaanka dhintay ama xisbidii leegada ninka tirsan dhintay hadii lagu tukanayo janaaso dadkii aan la socotay janaaso ku tukanaya dilacba u istaagay kuwa aan tukanin siyaasadda Soomaaliya way ku jiraan marka salaad protocol u taqaan salaad protocol u aqaan ana u bixi marka been luqaafo ali ka fogaasho naxariis la'aan tuugnimo waxaas ka buuxo marka يوم من الايام isbedel waa dhaca waayahay dabcan dawladdan hadda jirta xasan sheekh maxamed uu hogaamiyo ee waqtigeedu si ilaanayo qaybihii hore dhan waa adigii taageersanaa oo mataqaanaa la dhacsanaa hanaanka ay wax wada iyo shakhsiyadda xasan sheekh maxamed haddana waxaa muuqanayso inaad mucaarad isu bedeshay maxaa isbedel abstar niyo aniga abstar xasan cali la yiraahdaa aniga markasto waxaan sameeyaa wax la dhaho kobcin siyaasadeed haddaan arko cidda xildhibaanka labada mar aan soo raadiyay markii saddexaad isiin karto cidaasaan dhinaceeda u badana siyaasaddu waa maslaxadeedu waxay ku jirtaa cidda aniga aan dantayda ka helaayo micnaha waxa waaye dantayda ka helaayo marka aan ku leeyahay lacagaa lagu siiyey iyo hadal badba aad ii bedel ma aha waxa waaye aniga gruubkee ka dhex helayaa waxaan muddo raadinaya maxaana wax kaloo gaar ah dowladdii farmaajo iyo dowladdan hadda iga qabto ma jirto haddana Soomaaliya doorashada iska galaysaa doorashada markay soo dhamaato kadib waxaan sheekaysanaynaa ama anoo xildhibaan ah ama anoo soo waayay iyo sidaan ku soo waayay ama sidaan ku soo helay markaasaan sheekaysanaynaa maanta ma aha waayahay beriyaan wada hadlaynaa xilli la isu diyaarinayay inay doorasho ka dhacdo koonfur galbeed waxaad ku dhawaaqday inaad murashax ahayd maxaa iska kaa bedelay weli sidii musharax waa laakiin cidda waxay jirtaa marna Kismaayo joogtaa marna intay joogtaa Kismaayo amal 7 kursi oo taal oo reer koonfur galbeed ay leeyihiin bil aqsi Jubbaland 2 kursi ay leedahay dhaba taal oo 2 qof ogaadeen ku fadhiyo markii kuraasta la asteynay ayaa meesha la geeyay marka dhulkaan la isku yiraahdo jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyo gedo baay iyo bakool shabeellada hoose dadka degan waa dad walaala oo isdegan oo isdhaxdiga marka aniga laakiin shabeellada hoose ku dhashay sidaan ku sheegay asalkay aabaheen tiiglow ka imaaday oo gobolka bakool ah marka maalintii xilwaan ay wax dooranayaan waxaan aaminsanahay aniga iyo odayaashii la tartamay iyo dhalinyarada kale oo ila tartamayso in waqtiga iyo khibradda iyo qalbi wanaagna kala saaro waayahay maanta haddii aad ku guulaysato koonfur galbeed hogaaminteeda maxaa isleedahay waad qaban kartaa ni horta odayaal iga waaweynaa meesha joogo magac ahaan iyo dhaqaale ahaan laakiin ilaahay mulkiga
iyo mansabka kuma bixiyo dhirar gaabni madow iyo cadaan ilaahay qofku rabuu siistaa aniga haddii madaxweynaha koonfur galbeed la ii doorto reer koonfur galbeed waxaan wanaag ahayn waan usoo kordhinayo ma jirto horta wax xaasidnimo la yidhaahdo iguma jirto wax qalbi xumaan la yidhaahdana iguma jirto cadaawadda iguma jirto haddii qofka bini aadamka asiga waa iskara karaa baqiilna ma ihiye wixii dadka ay isla leeyihiin dadka inay kala gaaraanaan ka shaqaynaa ee qof walba meeshiisi xaqeeda ku hesho qofkii wadda loo qodaayo ceel loo qodaayo wadda loo dhisaayo iskool loo dhisaayo dadku kaama rabaan inaad lacag u qaybiso horumar inaad u qaybisay kaa rabaan cadaaladna u fasho marka ogaalkaygii qalbigan ka hadlaa mogta reer koonfur galbeed ani wax kama hadlaynayo waa dadkaygii waa aabyaashaydii waa hooyooyinkaygii waa dhallinyaradeydii wax aan ka hadlaynaa ilaahay abuurmay waayahay abstar waxaa jiray dhowaan inaad mataqaanaaye aada waduday olole wax loogu qabanayo goobo waxbarasho oo ku yaala deegaanka degmada qasax dheere ee gobolka baay halkuu maray niyow horta shaqo mar hore in la bilaabo ahayd ayaan hadda dhow bilawnay shaqadana keliya baay bakool kama socoto shaqada waxay ka socotaa meelo kala duwan oo Soomaaliya ah bishii Agoosto la soo dhaafay hadda bishii 11aad lagu jiraa bishii 8aad ee la soo dhaafay ayaan kaalmeynaynay ardayda dugsi quraanada ana kaalmeynay iyo dad kale oo aniga igu ra'yi ah 1500 kitaab quraana magaalada Baydhabo ka qaybiyay dhowr madraso aan roogaga ka bedelay tuulo oo awdiin u dhow meel Baydhabo 28 kilomitir u jirta masaajid dayacna makrofoonada u gadnay aadaanka taa la maqli jirin rooga u dhignay 100 habo kitaab ah aan geynay dugsi quraan tuuladaas ku yaal laba dugsi quraan man 100 habo kitaab aan geynay qasax dheera u soo gudubnay Baydhabo eerideed markaan soo dhameynay macallin abshir macallin leedaado dugsi quraana uu ku leeyahay xaafadda Holwadaag ee degmada qasax dheere oo dayacna arday waxaan arkay jiirgaaman dhexda laga gooyay ku fadhiya bus fadhiya lagu hoodo boor ah wax ka xumaaday horumar aan haysanin kitaabo jaajeexan wato laakiin dharkooda iyo noloshooda ay qorxoonta marka waxaan is dhahay dugsigaas ardayda ha loo dhiso 4 qol iyo fadhi aan dhahay 4 qol iyo xafiis iyo 2 musqul ayaan dugsigu ka dhisnay dhaxdiisaan shamiindaynay gadaaradiisaan derbi shamiinta ku soo wareejinay si markii roob imaado biyaha ay hoosta ugu soo galin dugsigii sidii aan ku furnay 220 arday ahaayeen waalidiinta iyo ardayda iyo culimada kulli way ka qayb qaateen bulshada inay isku imaato waxa ka dhalanaya horumarkeeda inay soo balaarto marka reer qasax dheere inay isku imaadaan ayaan ka shaqeeyay maanta masaajidadooda dhan kitaabada quraanka ka bedelay wixii kitaab jexjexnaa inta aruurinaan gubnay maadaama haddii qashinkii la dhigo meel la dhigo inuu lagu istaago kitaabka ilaahay quraankiisi ay dhibta marka xaafad oo ceelish biyaha ku dhow oo jabad geeli la dhaho dugsi quraan ku yaala kitaab geeyay weedo xaafad la dhaho oo dad qooti ay degan yihiin dugsi quraan ku yaala kitaab geeyay ku talagalkii haduu wuxuu yahay kaxda dugsi quraan ku yaala inaan dhiso haduu ilaahay yiraahdo marka samafalku waa socda waa ku soo daahay waayahay gabagabadii aan ku sii shaqeynaa waxaa jirtay in aad mar ii sheegtay inaad bilaabi doonto olole lagu dhisaayo
garoonka diyaaradaha ee qasax dheere maxay tahay baahida marka aad hadda xilliga u bilaabaysa iyadoo maamul meesha ka jiro niyo maamulka yani naftirkeygii isma diidanin maamulka naftirkiisii qof muwaadin ah wixii tala wanaaga u sheegaya haddaa tahay nin siyaasi tartamaayo han kaliya ku jira inuu maamulku u arkaa la diidaa mogtahay hadda maanta jimco waayo waraysigan aan qaadayno shalay khamiis ahayd subaxeed aniga cabdiciis lafta galena isla joogna meel magaalada Nairobi oo hotel Radisson Blu la dhaho marka ani cabdiciis dad iska soo dilay oo is haysta oo diin isku haysta manihin asagana si uu u fikiraya in dadka loo hormariyo anan si aan u fikiraa marar qaarna waa sheekaysanaa waa isku imaanaa marka igu dhalatay in garoonkii degmada qasax dheere runwaygiisa iyo meelihii diyaaradda ku tegaysay wixii la dayactiro maamulka asigaa wasiir ku-xigeenka gaadiidka u soo diray diyaarada la soo saaray wasiir ku-xigeen gaadiidka iyo injineero eelboorkii waa la geed qaaday eelboorka xilli maxamed siyaad baraa la dhisay waa shamiintaysan yihiin runwaygiis wixiis waa fiican yihiin dayactir kaliya rabaa marka waa la geed qaaday ani marka meesha aan ka gal waxa dadka bulshada waa dadka bulshada la hadlay waxaan dhahay qof walba masaartiis ha qaata geedaas ha gooyo runway ila runway geed ku yaal diyaarad kama degi kartee marka si volunteer ah dadkan u awaawul in maamulka garab siiyaan maamulka degmada iyo dawladda koonfur galbeed iyo dadkii deegaanka iskaashanay eelboorka hooshis aad aragtay taas waa si oo iska wax u qabsa ah ayaan u galnay waayahay haddana meel fiican u noo maraa waayahay waxaa kaloo dhalinyaro shaqaysato oo degmada qasax dheere ka soo jeedo aan ka helay in dugsiyada hoose ku yaal degmada qasax dheere ay dayactiraan waxa soo lama dhigi karin waa shaqadii maamulka meesha ka dhisan iyo siyaasiyiinta guud ee deegaanka dadka degan ay matalaan ay qabtaan Soomaaliya niyo ani hadda cidna kuma eedeynay laakiin dib u dhaca koonfur galbeed kawligi kama jiro Soomaaliya dhan oo ka jira marka aan cid aan ku eedeynay male laakiin maalinteedii haddii la gaaro oo ilaahay igu guuleeyo xilka madaxweynaha koonfur galbeed wixii ani igu dhex jiro ani igu dhex jiraan marka waa tahay fariintaada ugu dambaysa ee aad manaha la wadaagi lahayd bulshada Soomaaliyeed hadday ahaan siyaasiyiin hadday ahayd aqoon-yahano hadday tahay bulshada guudba fariinta ugu horeyso aniga aan bixinayo waxa waaye marka ugu horeyso waxaan u soo jeedinayaa gurigeyga qof gurigiisa qurxoon ayaa guri kale wax u tara marka ugu horeysa fariintay reer koonfur galbeed u soo jeedina waxaana aad u baraarujinaa reer buur hakaba oo isku tashi garoonkooda ku dhistay waxaan leeyahay qof kasto reer koonfur galbeed degmadu joogo station police ku yaalo hadda yactirto mar hore qodnaa dayactir u baahan oo motor u baahan ama solar u baahan hadda meel ku ogtihiin dhameystira isku tashiga bulshada waa kobcinta dawladnimada marka bulshada reer koonfur galbeed taas ka codsanaa u soo gudub bulshada Soomaaliyeed oo aniga ka soo jeedo marka hore gurigeyga la hadlaan ku yiri muqt marka kale bulshada Soomaaliyeed aan ma aragtay u soo jeedinaya maamul goboleed kasto dadka deegaankaas ka soo jeedo isku tashi ha ku dhisto wixii oo xarumo dawladeed ah ama garoon ah ama wada ah hadaan idin wax qabsanin beesha caalamka hana caawiso mar badan waa dhaxnay beel caalam waa ka maarmeen marka dardaarankay waa intaas waaya waad ku mahadsantahay Abstar sida wanaagsan ee barnaamijkan nooga qayb qaadatay isla markaana aad noogu bilaamisay waxyaabo badan aadna nooga aqbasho waxaan rajaynaynaa barnaamijyo kale inaan ku kulmi doono haddii la xidmo guud ahaan barnaamijka bandhiga la qaayo oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa Abstar Xasan Cali oo ah siyaasi da'yar isla markaana u dhaqaaqa bulshada waanaga inta barnaamijka waxa la socodsiin aniga Axmed la qaaytan intaan barnaamijka la mid ah ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sidaayo nabadgelyo waa mahadsantahay Axmed